السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دمانتين برتيادا فيسبوكا سان كلاود سومالي تي في iyo سان كلاود سومالي راديو كسو دوادا برنامج كله oo la xiriira arrimaha xanuunka coronaviruska iyo gobolkan Minnesota gaar ahaan magaalada St. Cloud iyo hareeraheeda barnaamijyadan ayaan waxaan uga hadalnaa arrimaha xaaladda coronaviruska la xiriira inta ay xaaladani jirto barnaamijkeega waxaa maanta noogu marti ah Hudo Daud oo iyadu ka howlgasha xafiiska Stearns Public Health oo inala wadaagi doonta xogtii ugu dambeysay ee la xiriirtay xanuunka coronaviruska sidoo kale barnaamijkeega caawa waxaa noogu marti ah Hani Jacobson oo iyaduna ka shaqeysa xarunta Center Care ee ah xarunta ugu weyn ee maamusha goobaha ugu waaweyn ee caafimaadka ee magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota barnaamijkan ayaa sida qaalibka ah maalinta Khamiista ah inta ay xaaladani jirto waxa uu live kan qodona barta St. Cloud Somali TV iyo barta St. Cloud Somali Radio ee ah dhanka Facebook sidoo kale dadka doonaya in ay barnaamijkan nagala qayb qaataan ama wixii su'aalo ah weydiiyaan iyagana sidaas oo kale way nala soo xiriiri karaan ama nambarkayga oo aan shaashadaydu ku soo qori doono ayaad haddii ilaahay idmo ka soo wici kartaan waa barnaamij aad u muhiim ah oo aan ka hadlayno waxyaalaha ku soo kordhay magaalada St. Cloud iyo guud ahaan gobolka Minnesota marka ugu horeysa barnaamijkan haddii ilaahay idmo waxaan ku hormaraynaa Huda oo aan weydiinayno bal inay noo sheegto xaaladii ugu dambeysay ee magaalada St. Cloud hadda halka ay marayso haddii ilaahay idmo ku soo dhawow Hudo barnaamijka bal waxaad nooga warantaa degmadan hadda Stearns County iyo magaaladan St. Cloud xaggay maraysaa xaaladda xanuunka COVID-19 ku soo dhawow barnaamijka وأنا ولا أحمد اللاري عاد بعد ما هتنتهي أنت اللي جالس وقيب جلسة program كان مقطع وهذا وحنوش قياد دقمة عافماتك قبلك Stearns County Public Health وحنقابل سنة هاي قيبتي إذا عافماتك حنونا ضفافة إذا إميك COVID-19 هدي أن وجود قالوا حنونك هذا استارس كيس يوميش ومرايو as of month COVID ممكن ظهر نمو وحن هينا كل لح بقول يكوبي أفرتن كيس وpositive so far نسقال قف أيا أودنتي COVID-19 دقمدينا waayahay guud ahaan nambarka degmada Stearns County oo hadda marayo ma nagu celin kartaa adigoo raalli ah kun lix boqol koobi afartan kun iyo 642 inta aanan ka gudbin waxaad moodaa number aad u badan inuu yahay marka la fiiriyo ka degma ahaan marka la fiiriyo numberkaasi marka ma isleedahay degmooyinkan hadda nagu dhigan sida Sharban iyo kuwa kale nagu meegaarsanba magaaladayada St. Cloud way ka number sareysaa hadda xanuunka aad imika Benton County waxa weeyaan 117 laba qof baana ku dhintay sidoo kale Sherbanna waxa weeyaan iyaduna aad bay nooga number yar tahay I'm going to try to pull it up waa 135 hal qof baana ku dhintay so St. Cloud aad bay numberkaas uga tiro badan tahay waayahay magaalada St. Cloud iyo degmada Stearns aad bay uga tiro badan tahay dadka ku dhintay hadda inta la og yahay degmadan imisa weeye maadaama aan isbuuciiba hal mar aan update kan gaar ahaan ku saleysan xaqiiqada aynu ka hadalno numberka meeqa lagu sheegay hadda inta ku dhimatay degmadeena Stearns 9 qof waayahay 9 qof waayahay maxaana la wadaagi kartaa xaaladaha kale ee hadda degmadeena ay ku sugan tahay marka aad fiirisid sida degmada ay ula tacaalayso dadka lagu sheego xanuunada wallahi wali maxaa la yiraahdaa waan wadnaa dadkii inaan waanino wacdi gelino oo qofkii isku arka calaamadaha COVID-19 inuu gurigiisa joogo
xitaa intuu tastiga sugaayo dad badan oo waxaa jira markay tastiga iska soo qaadaan saddexda beri tastigu soo noqonayo iyo inta laga soo wacayaba aad moodid inay magaaladii ay u baxayaan ay danahooga iska raacayaan especially dadka hadda weli calaamadaha zaa'ida dareemaynin oo respiratory issues dareemaynin waxaan wacyigelin dadka weli ku wadnaa inaan u sheegno waqtiyadaasoo kale inay gurigooga iska joogaan ilaa intay uga soo noqonayso ay isolate gareeyaan maaskiga xidhaan maxaa la yidhaahdaa dadkii kale bulshadii kale baxaysay ama suuqa kasoo adeeganaya amba banaanada wax kasoo qabsanayana mar walba gurigooga ka baxayaan inay weli maaskiga isticmaalaan maasha allah horta aad baan magaaladeena ugu maadaragtay faraxsanahay inay sheekadan amba maxaa dhahdaa xanuunadana ay serious u qaadanayaan oo dadkii oo dhan wada arkaysa soomaalidii inay aad u taxadirayso ay gloves xidhan yihiin oo maaska xidhan yihiin muhiimaddu waxaa waaye weli contactyadii iyo maadaragtay dadkii distancegii ayaa waad moodaa inay yara problem tahay hadda waxaan kula jiraa shaqo aan la shaqaynayo local Somali business stores xalaalada meelooyinka maqaaxiyada moolasha in aan waraaqo wacyigelina aan dhigno mar walba dadkii maadaragtay wacyigelinaysa in ay kala fogaadaan ay maaska xidhaan dadka businessyada lana dukaanadii xalaalaha lana in aan u provide gareyno resources maaskiyo hadday u baahan yihiin hadda waxaa jira couple of local xalaal oo ah dadka already samaynaya no mask no service hadduuna qofku maaska xidhnayn waxba ka gadaynin marka waxaan rabnaa iyaga dhan dhammaan in insha allah saas oo kale iyaguna ay u reinforce gareeyaan dadku inay maaska xidhaan maadaama ayna 6 feet distance adag tahay inay dadkii maadaragtay kala joogsadaan inay hal mar dadka dukaanadooda soo gelinaya waxoogaa ay maxaa dhahdaa dhowrkii qofka mar siiyaan ay time siiyaan insha allah taasna waa shaqo aan kula jiro intaas soo far update ah waayahay waxaan rabaa inaan arrimaha ganacsiga magaalada maadaama ay yihiin hadda xarumaha keliya oo ay tagaan dadka soomaalida qaarkood marka laga reebo shaqooyinka inaan wax badan kaa weydiiyo laakiin waxaan ku noqonayaa amaan markana wareysanaynaa hani waxaad nooga warantaa center care dabcan waa cusbitaalka ugu weyn magaalada St Cloud haddana waa xarunta keliya ee lagu baaro dadka waana halka ay tagaan dadka Soomaalida ah maxaad nala wadaagi kartaa arrimihii ugu dambeeyay dhinaca cusbitaalka ama fariimaha uu doonayo inuu cusbitaalka center care u diro bulshada dhageysata idaacadan ama barnaamijyadan Hi Ahmed and Huda, thanks for having us Ahmed. dadka inaan la socodsiiyo hadda baaritaankii ugu fududaaday sidii hore uma dhib badno haddaad calaamad isku aragtid waad wactamaysaa waa lagu baarayaa waxaa jira wax la dhaho curbside testing banaanka adoo gaarigaaga ku jiro ayaa lagu baarayaa laakiin balan ayaad u baahan tahay lambarkaad wacaysaa waxaad u sheegaysaa waxaad isku aragtay balan baa lagu qabanayaa waagii hore dadka dhan lama baari jirin bad hadda way ka fududaatay arrinta sidii hore waxaan kaloo rabay inaan markii hooshayna waxay ahayd aan prevention wax la dhahaan samaynayna nacam ka hortag hadda cudurkii wuu soo galay magaaladeeni dadkeeni badankood uu ku dhacay marka hadda waxaan ku jirnaa wax la dhaho containment sidii aan guri dhacay meeshiisa uu ku ekaado galay sidii kale aan ugu sii faafinin marka taasoo arrimahaas laha aan u samaynayno waxaa ka mid ah siday Huda sheegtay maaska la xiranay markaad banaanka baxaysid iyo haddaad jirin tahay oo gurigaaga aad joogaysid oo aad baxayn oo aad isdhahayn nacam dad waxaa jira xanuunkii xoog u qabanaya iyo dad oo waxba isku arkeenin laakiin xanuunkii waa leedahay lagu dhahay mar xanuunkii waa positive haddii lagu dhahay haddii xataa aad xanuunsaneen waa muhiim inaad gurigaaga joogtid oo dadka iska ilaalisid iyo arrinta hadda waxaa bilaabatay dadka isbitaalka in la seexiyo qaarkood faamilyaashii iyo nurseyaashii meesha ka shaqaynayay way isku yar daaleen qof baa isbitaalka la seexinaya markaas waxaa wacayo unitkii waxaa wacayo 10 qof aniga update baan u baahanahay waxaa wacaya xaaskii
walaashii caruurtii qofka uu dhalay marka arrintaas waxaan u baahay hadda sharci ayay soo dejiyeen isbitaalka maadaama qofna dee qofkii jirna u tegi karin ama qofkii jirna aad wici karin family kasta waxaa lagu dhahay haddii qof nalaga seexiyo meesha covid unitka ama meesha covidka loogu talagalay ama anywhere oo isbitaalka maadaama isbitaalka qofna aadi karin hadda family spokesperson waa inay doortaan qof oo lagu hagaajiyo update ama wixii family memberkii ama qofkii isbitaalka jiifay wixii ku saabsan oo dhan qof lagu aadiyo dadka kale oo dhan markaas qofkaas oo familygooda ka mid ah ayay la xiriirayaan si oo dee nurseyaashiina busy looga dhigin because waa inay qofkii take care gareeyaan qofkii xanaaneeyaan nurse gareeyaan familygiina dee hal qof oo lagu hagaaga se u helaan marka arrintaasna waxaa rabay inaan usoo gudbiyo bulshada St. Cloud waayahay haddaan si saxa kuu fahmay cisbitaalka center care waa cisbitaal aad u weyn dabcan marar badanna waan arkay marka ay qof la dhigo ama tusaale ahaan hooyo ay ku umusho oo kale qof dumar ah dad fara badan oo baa aad u taga xilligan hadda la joogana waxaa lagu jiraa xilli aad uga duwan xilligii hore marka waxaad leedahay center care-ku haddii hadda qof kaa xanuunsan yahay oo xanuunkan lagu sheego waa inaad doorataan hal qof oo qoyskiina ka mid ah oo la xiriiri kara oo qofkaas noqon kara qofka kaliya lagu wici karo waxaan ogaa intayn arrintan dhicin ka hor haddii qof ugu tagayo cisbitaalka in hal qof loo diiwaan gelin jiray marka laga hadlayo xanuunada kale haddii qof ku umusho oo kale ama qof uu jiranaa uu si caadi u jiifay laakiin hadda waxaad leedahay wacistii xataa waa inaad qof aad u doorataan qoyskiina cid walba iskama tegi karto ma wici karto cisbitaalka ha because qofkii hal nurse waxay ku qoran tahay adii kaba soo qaad 3 qof oo kale marka maanta dhan telefonkii ma qaban karto 10 qof update ma siin karto marka sababtaasaa loo yiri hal qof doorta markaas qof kale hadduu soo wactamo waxaa la dhahayaa hebel qofkaas ayaa u xil saaran oo familigiisa ka mid ah qofkaas adiga wuxuu update ka hel si haddana nursekii markasta qolkii looga soo saaray because qolka markay galaan telefoonkii ma qaadan karaan qolka markay ku jiraan cabaaray ku jiraan markay soo baxaan qof kale haddana usii galayaan marka waxaa dhacay is afgarad la-aan badan ayaa ka dhacay xaggaas nursekii oo familiyaashii ku daalay iyo familiyaashii oo dee markasta ku lugo-ayo informationkii u baahnaayeen aysan helayn waayahay dhaqan waxaa u ahaa dadka soomaalida sidaas oo kale in cisbitaalka qofka jooga loo tago ama cunto loo geeyo meelaha lagu sheekaysto dad baan waxaan ka maqlaya haddii qofkaaga cisbitaalkiisa ka geysid ma caawin karaysid sida cunto ama waxaa doontid ma siin karaysid haddii uu qof qoyska ka mid ah uu damco inuu cisbitaalka cunto ugu geeyo qof ka xanuunsan arrintaa ma u suuragal baa xilligan arrintaas marmar way suurtageli kartaa marmarna ma suurtageli karto waa muhiim qofka inuu nurska oo qofka aabihiis ama hooyadiis ama walaalkiis takeer gareynayo arrintaas inuu kala hadlo because waxaa jiro patient kasta cunto kasta iskama cuni karo dhakhtarku waa inuu u fasaxaa wuxuu cuni karo qofkaas dad waxaa jiro NPO la dhaho afka dhan waxba ka qaadan karin loo ogoleen in case arrinta emergency ay noqoto oo dee wax kale usii baahdo iyo dad oo meesha observation ahaan oo in la ilaaliyo lay u joogaan oo waxay doonaan cuni karaan marka waxay ku xiran tahay qofka waa inaad la xiriirtaa nurska oo dhahdaa cunto ma u keeni karaa hadda waxaa dhacay dadka qaarkood cunto waa loo geeni karaa banaanka u dhigaysaa kuwa securityga kaa qaadayo oo ugu geenayo qolkooda laakiin waa inaa xiriirkaas iyo ballantaas nurska la samaysataa waqtigaa keenaysid waxyaalo badan in laisku aadiyo waaye ma ahan intaa meesha iska tagtid oo dhahdid hebelaa cunto u wadaa waaya sida aan ognahay dabcan sharcigu dadku ma kala saarayo hadday dhinaca countiga tahay dhinaca cusbitaalkaba laakiin way jiraan soo maaha dad hadda bulshadeena ka mid ah oo ka mid ah dadka cusbitaalaadka hadda yaallo xanuunka u daran cusbitaalaadka jira
ku jira? inkastoo arrimahaas aan ka hadli karin laakiin bulsho ahaan Stearns County haddaan ka hadlo way jiraan dad isbitaalka ku jira. Okay, waayahay waxaan dib ugu noqonayaa Huda. Sidoo kale barnaamijkan dadka doonaya inay soo wacaan nambarkayga ayay soo wici karaan haddii la haydmo si su-aasha aad qabtaan aad u weydiisaan. haddii la haydmo waxaa barnaamijka maanta noogu marti ah laba qof oo ka mid ah dadka muxtarimka ee ka shaqeeya magaaladan. waa Huda oo ka shaqeysa xafiiska degmada Stearns ee qaabilsan weliba arrimahan caafimaadka la xiriira COVID-ka, iyo Hani Jacobson oo u shaqeysa center care-ka. dib baan waxaan rabaa inaan ugu noqdo Huda arrimaha xagga ganacsiga oo ah ganacsiga lagama maarmaanka sida dukaamada laga adeegta. Soomaalidu waxay leeyihiin dukaamo u gaara oo aan u naqaano dukaamada xalaalada. magaaladan inkastoo ay tahay magaalo yar waxay ku dhow yihiin dhowr iyo 10 dukaan, 20 iyo ku dhowaad bay ku dhow yihiin dukaamada Soomaalida oo ku yaala. waxaan moodayay inaad tiri si gaar ah ayaa hadda waxaa dukaamada ama ganacsiyada loola shaqeeyaa ama waxyaalaha laga rabo loogu sheegaa. waxaan arkay mid ka mid ah dukaamada maanta aan tagay isbedel badan buu sameeyey, hadday tahay dhinaca nadaafadda, hadday tahay inay dadka u sheegayaan qofka inay kala durkaan ama mask ay oranayaan dadka soo xirta. marka fariin ma gaara oo aad gaarsiinaysaan miyaa jirta dukaamada? kusoo noqo Huda. raalli noqo codkaa dhinacan ka gaabiyey, ku soco. waad mahadsan tahay. hadda wada shaqayti baan ayaan la wadnaa dukaanada Soomaalida, weliba waxaan u qaabilsanahay Somali local businesses. inkasta oo anaga county ahaan Stearns County Public Health ay la wada shaqeynayaan waxaa la wixii business ah maxaa ku yaala Stearns County arrintan ay saameyn karto, laakiin aniga Huda ahaan waxaan u qaabilsanahay inaan la shaqeeyo Somali businesses. marka maasha Allah aad bay hawsha noola wadaan informationada iyo update-ka kolba wax week day to day bay hawshan isbedelaysaa. wixii aan shalay dadka kula talinayna amba last week dadka kula talinayna waxaa laga yaabaa CDC-ga iyo MDH inay bedelaan. so inaan u noqono anaga resources and new information iyo new update aan maaragtay xalaalada siino ayaan ku la shaqeynayna ku hawl jirnaa. maasha Allah so far they're doing really good. qaarkood waxoogaa way ka yara dabacsan yihiin ruulka, inkastoona dee anigu aanan lawmaker ahayn oonan ku khasbi karin inay tallaabo khasaba qaadaan, bas inaan caawiyo oon advice gareeyo oo wixii iyagana faa'iido u ah communitygana faa'iido u ah aan maaragtay aan la wadaago un baan awood u leeyahay. taasina wallahi so far aad bay maaragtay igu soo dhaweeyeen oo ixtiraameen oo accept gareeyeen inay directionada loo baahan yahay ay qaataan. also waxaa jirta company waaweyn imika sida Walmart oo kale waa la xiray yesterday and then waxaa la furayaa Britole maanta la furay 7 subaxnimo la furay. so last 24 to 48 hours waa la clean gareynayay. iyaga reach out noo sameeyay oo soo waceen oo dhaheen maadaama maxaa la yidhahdaaye oo xanuunkani magaaladeena soo gaadhay Stearns County aad u impact gareynayo, waxaan rabnaa inaan clean gareyno oo labada cisho aan xidhno. so kambaniyada qaarkood awood iyo waxay leeyihiin maaragtay funding ay waxan ay ku qabsadaan, laakiin dukaanadeena Soomaalida waxa laga yaabaa marka qaarkood informationada saxdaaba in ayna maaragtay ayna la socon. so aniga marka waxaan u fududeynayaa inaan informationadaas u gudbiyo ay si toosan ila soo xiriiri karaan waxyaabihi kale u baahan yihiin. countigu wuxuu ka caawinayaa inuu maaskiyo siiyo, inuu information resources siiyo iyo wixii kale ee maaragtay COVID-19 ku saabsan ay u baahan yihiin in aan maaragtay aan resource u noqono. waayahay arrimaha hadda kambaniyada ama dukaamadu mararka qaarkood ma samayn jirin, ani kolley kuma aanan arkin waxa loo yaqaano hadda deep cleaning oo ah dukaanka in ama ganacsiga ama in si fiican loo clean gareeyo. tusaale ahaan waxaa jiray cabasho ka yeeraysay kambani ku yaala magaalada oo Cold Spring ku yaala oo lagula taliyay inay 2 isbuuc xiraan, kambanigana uu nadaafad dheeraada sameeyo, taxadar ama protectionna ay sameeyaan. sidoo kale dukaamada Soomaalida hal dukaan oo waxaan ka warhayaa qof gaara u qabsaday inuu nadaafadda ka shaqeeyo oo aad moodid. waana jeclaan lahaa dukaamada Soomaalidu inay sidaa ku sii wadaan
ay qof gaara u shaqaalaystaan hadday dukaan tahay iyo maqaayadba nadaafadda deep cleaning ay sameeyaan oo ay ixtiraamaan dadka customka adiga ahaan haddaad la talinaysaan nadaafadda dheeraadka ee aad weydiinaysaan dukaamada ay soomaalidu ka adeegtaan ama aanu leeyihiin ee loo yaqaano dukaamada ama hilib xalaalada maxay tahay nadaafadda zaa'idka ah oo looga baahan yahay inay sameeyaan qaar ka mida maxaad nala wadaagi kartaa awda hadda MDH-ka waxaa jirta resource u gaara oo maad aragtay hay'adda caafimaadka soo dejisay oo loogu talagalay business ownerska laakiin anaga ahaan waxa as I said ma in reinforce gareynayno inay wax tallaabo ah qaadaan laakiin wixii resources ah oo sidii xanuunka uu ku faafayo baan la wadaagayaa not particularly inay hire gareystaan amba clean gareeyaan taas waa Department of Labor bay u qaabilsantay laakiin aniga shaqa huda ahaan amba ka county ahaan waxaan resource u siinaynaa most updated information sida local madaragtay xanuunka weli spreadkiisa u socdo calaamadihiisa waxyaabaha ay iyagu samayn karaan ay naftoodana ku badbaadinayaan dadka kalena ay ku protect gareynayaan way ka hay inay mask xidhaan hadday u baahan yihiin sanitization stations inay haystaan hadday u baahan yihiin information ay madaragtay la wadaagaan customeradooda iyaga laftigoogu wacdigelinta dhinac weyn bay ka wadaan hadduu qof jiran oo kale soo galo inay madaragtay ay qofkaas ku dhiirigeliyaan inuu isa soo baadho amba Soomaaliya inagu haddaynu nahay we often waxaan nahay hadal afka wax ku maqalnaa so waxa laga yaabaa qofka aniga waxba iga maqal amba waxa suuqa ka soo aaminsaneen dukaanada uu ku xidhnaa amba businessyadu ku xidhnaa in uu madaragtay consume la wadaago iyaguna ay u noqdaan source of mahadadaye information ay siiyaan ay dhihi karaan what calaamadaas hadda isku aragtay warniyo isa soo baadhanba go check yourself and sidaas oo kale inay u caawiyaan customerkooga ayaan kala shaqaynaynaa laakiin nadaafadda aad bay u fiican tahay sanitation aad buu u fiican yahay MDH and CDCs are recommending ina faraha la dhaqo saabuun lagu dhaqo sanitization ina la sameeyo oo madaragtay gacmihi la sanitize gareeyo waxyaabahaas oo dhan madaragtay waa weli waa wax loo baahan yahay okay waayahay dadkan daawanaya ama dhinaca Facebooka Sencloud Somali TV ama radio ka daawanaya haddaad magaaladan ku nooshahay waad jeceshahay inaad su'aal weydiisid barnaamijka martida noogu marti ah oo weliba ka shaqeeya Center Care iyo Stearns County waan jeclaan lahaa nambarka hadda shaashada idinka muuqdo 623238 in aad soo wacdaan waxaan ka hadlaynaa arrimo muhiim ah oo la xiriira caafimaadka iyo xaaladda coronavirus sida aad maqlaysaana nambarka waxaan u malaynayaa hadda sida ay noo sheegtay Huda inuu marayo 1642 walow aanan dadka ethnic ahaan ama aan midab ahaan loo qaybin nambarkaas nambar weyn waxaa ka ah bulshada Soomaalida maadaama ay meelaha qaarkood ka shaqeeyaan shaqooyinka ay sii wadeen oo ayaan joojin oo ay cabasho badan ka timid waxaan rabaa inaan arrin idin weydiiyo labadiinaba dhawaan waxaana soo wacay nin ka mid ah dadka ganacsatada ah wuxuu noo sheegay fariin uu rabo inuu u gudbiyo bulshada oo ah ima soo geli karo qof aanan xirayn maaskiga aniga marka waxaan isir war armaadan arintaasi sharci ahayn oo aadan oran karin laakiin waxaan u fikirayay inuu noo yimaado waraysana siiyo hadda waxaan jirta businessyadii ama ganacsiyadii qaarkood inay leeyihiin yuusan qofka noo soo gelin haddii uusan mask uusan xirayn sidoo kale maanta waxaan arkayay cusub bangiga Wells Fargo oo isagu hore u joojiyay inay dadka gudaha soo galaan oo dirishada uga adeegay hadda inay yiraahdeenba line-ka ha soo gelin haddii aad qabtid positive aad tahay COVID-19 arrimahaasi bal Huda aan ku hormaro hani ma la awooda xilligan la joogo oo xaaladda adag lagu jiro inuu qofka ganacsadaha ah ama business kale uu protect gareeyo dadkiisa ama arintaasi ay yiraahdaan ku soo dhow bal marka hore hani na update garee arrimahaas wax ku saabsan arintaas wallahi waa arin fiican oo aad aan anagu ugu raacsanahay businessyada already waxyeen dukaamada qaarkood hadda manaar kale ma geli kadigoo mask xirnaan isbitaalka klinikyaasha iyo dhowr business kale oo arintaas bilaabeen marka Soomaalida dukaamadooda bisana waxaan kula talinaynaa inay bilaabaan qof aan mask xirnaan inuu u soo galeynin
inkastoo aad aan ugu faraxsanahay markaan hadda banaanka u baxo ama aldi aado ama qof kasta Soomaali aan arko wuu xiran yahay mask dadka aan badankooda xirneen waa dadkan magaaladan u dhashay oo aan la deganahay mogtahay marka Soomaalida badankood waa xiran tahay laakiin bulshada oo dhan ayaan hadda campaign oo maskigooda xirnaan ayaan u wadaa waxa kale inaan ku sheego badankood dukaamada Soomaalida spacekooda wuu yar yahay mogtahay dadkiina 6 feet waxay sidoo ku kala joogi lahaayeen marka wax kale oo aan kula talin lahayn waxa weeyaan markiiba maybe 5 qof camal ha u ogolaadaan meesha inuu soo galo si oo dee meesha la iskaga buuxin ama 6 talaabadood lama kala joogi karo spaceda yar marka arintaasna inay bilaabaan ayaan kula talin lahayn dukaamadan oo dadkeena Soomaalida ay leeyihiin waayahay mar kale waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo haddii ilaahay idmo Huda waxaa jirta sida aan arkay degmadu waxay bixisaa maalin walbaan filayaa kowda markay tahay warbixin la xiriirta xaaladda hadda degmadani xagga ay marayso ama xanuunka meesha uu marayo maxaad nala wadaagi kartaa warbixinaha ay sii daayaan xogta ku qoran seese ay u ogaan karaan dadka raba xogtaasi inay ogaadaan ama ha noqdaan ganacsato ama ha noqdaan dadka miidiyaha ka shaqeeya kulley email baan anigu ka helaa maalin walba waxaan u malaynayaa kowda markay tahay xogtaasoo weliba aad u muhiima say bulshadu ay ku ogaan karaan xogta ugu dambaysa ee degmada ay ka soo saartay arrimaha ku aadan xanuunkan iyo wixii fariimo aba information kaas waa MDH Minnesota Department of Health website kooga haddii ay galaan waxaa jirta COVID-19 page-ka kaas markay galaan situation update for COVID-19 aa jira kaas markaad gashid wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad aragtid maalin kastana waxaa la update garayaa 11 o'clock informationkii ugu dambeeyay ha ahaato numberka ha ahaato inta qof u dhimatay amba inta qof cusub ee laga helay maalintaas iyo informationadii kale talaabooyinka dambe ee rabaan inay maadaragtay samaysid amba iskaga garaysid iyo CDC-guna sidoo kale guideline-yada cusub mar walba xanuunkani waa wax cusub oo mar walba wax cusub la discover gareynayo amba la helayo amba laga ogaanayo so update-ka labada meeloodba anaga ahaanba aan informationka ka qaadana public health-ka bulshaduna wuu furan yahay oo qof walba access u leeyahay waa public data labada meelood baa aad ugu muhiimsan inaa maadaragtay laga update gareeyo waxyaabihii kale ee local ahna kulay local newska iyo maadaragtay marka qaarkood newspaperkeena localka ahna waa lagu soo qoraa waa run waaya local newspaperka aad baa loogu soo qoraa arrimaha weliba dhinacyo badan sida uu u saameeyey bulshadan iyo waxa ka dhacay oo dhan journaalka magaalada St. Cloud Times qofkii ingiriis yaqaana uu kala socon karaa xaaladda maalin walba walow annagun raadi ahaan aan isku dayno inaan bulshada hadba xaaladda uu lagu sugan yahay aan u sheegno laakiin way adag tahay in aad update garaysid sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo hani cusbitaalka Center Care waa cusbitaalka kaliya oo dadka la seexiyo oo ku yaala hadda magaaladan St. Cloud waana cusbitaalka yani inkastoo aad u horumarsan yahay hadda gacanta ku haya inuu dadka xanuunkan u qaba la dhigo maxaad nala wadaagi kartaa cusbitaalka sidee buu u wargeliyaa dadka baaritaanadii la qaadi jiray sidee loo qaadaa baaritaanka hadduu hadda dhegaysanayo barnaamijka qof isku arka calaamadaha lagu garta xanuunka seese dadku ay ku helaan jawaabta kusoo dhowow codkaa kaa xiran baan u malaynayaa okay ma isku aragtid calaamado ka mid ah dhuunta ku xanuun jirka ku xanuunaya qandho qufac shuban dadka calaamadood kala nooc ay isku arkayaan dad badankood waxay sugayeen qufac iyo qandho kale laakiin dad waxaa jira qof ay ku dhaceen jirka uu xanuun
madaxa uu xanuunay ama shuban uu ku dhacay markaad calaamad isku aragtid lambarkii hadda ka hor nila wadaag 320003200 gaasaa wacaysaa waxaa dhahaysaa covid-19 symptoms aan isku arkay horta lambarka soomaaliga taabanaysaa haddaada luuqadi aqoonin waxaa dhahaysaa alaba in la ibaaro waxaa lagu siinay balana lagu sameynayaa waxaa lagu dhahayaa markaa curbside-ka imaadid cliniga oo emerga agtiisa ah riverka la dhaho marka imaadid parking lambar ayaa soo wacaysaa waa lagu check in gareynayaa gaarigaagaas meel teendhooyin ee taalo aad aadaysaa dhuunta ayaa bahal swab ama maxaa la dhahaa I don't know Soomaali wax lagu dhaho swabka adi bahal oo suuf afka hore kale ayaa dhuunta lagaaga dhahayaa jawaabtaada waxaa ku helaysaa 2 ilaa 3 cisho jawaabtaada markaa heshid kadib warqadna way kuu soo dirayaan ay jawaabtaada ku qoran tahay sidii dee haddaad shaqo leedahay ama waxyaalahaas aad ugu sheegi lahayd supervisorkaaga nacam covid ayaa laga helay marka dadka isbitaalka la seexinaya oxygenkooda hoos oo pneumonia ku dhacdo markay ka galaan biyo iyo dee xanuunka baa dadka la seexiyaa isbitaalkan St. Cloud Hospital waalideena ku yaalo mid kale nooma dhowo soo sababta loo leeyahay aan kala yareeno haddii dadkii dhan hal mar xanuunsadaan meel kala geeyo ma lahan marka sababtaasaa loo leeyahay nacam haddaan xanuunkii kala fogeeno marba ku dhaco isbitaalkii waxaan haysanaa spacekii qalabkii wax kasta marka muhiimada ugu weyn oo aan u leenahay nacam xanuunkii aan kala fogeyno galahaasaa ka mid ah waayahay hani waa mahadsan tahay waxaad moodaa internetka dhinacaaga inuu yaro daciif yahay uusan clear u ahayn sida kan huda marka haddii aad meel kale aad tegi kartid aad moodid meesha xaafadaada meel internetka inuu ku wanaagsan yahay waad dhaqaaqi kartaa kamarada waa kaa duweynaa in yar haddii ilaahay idmo haddaad isku dayi kartid codkana uu kaa yara gogo-ayaa marka okay waxaan dib ugu noqonayaa huda dad waxaan arkay ka cabanaya oo oranaya waxaa la igu yiri waa lagu soo wacayaa oo waxaa kula soo xiriiri doonta dowladda la ilamnana soo xiriirin oo gurigii baa la igu yiri isku xir cid ila soo xiriirtay ma jirto marka haddii qofku qaybta cisbitaalka ay baariti ay ku sheegaan waa maxay tillaabooyinka kale oo dhaca yaasa u qaabilsan dowladda ama degmo ahaan ama ka state gobol ahaan in qofka bukaanka ah guriga ku jira lala xiriiro waa maxayse waxyaalaha loo sheego qofkaasi la yiri guriga isku xir wallahi waa su'aal aad u fiican so processku waxa weeyaan marka qofka uu soo baaro dhakhtarka tago laga soo waxay qaadanaysaa inay jawaabtaas ay ku helaan baaritaankaas uu socdo ilaa 3 days cases waxaa jira very limited ah oo 2 saacadood gudaheed qofka jawaabta loogu soo heli karo laakiin taas waa very limited and certain circumstances unba testigaas loo isticmaala laakiin bulshada inta badan waa laga qaadayaa swabka 3 bari ilaa 72 hours uu ka maqnaanayaa jawaabtu markay ku soo noqoto marka ugu horeysa waxaad soo wacaya maxaa dhahday nurse ka socota central care-ka dhakhtarka ka socda kula soo hadlaya haddii aad my chart isticmaashid oo ah iyagu app loogu talagalay inaad caafimaadkaaga rekorkaaga kala aragtid oo central care uu leeyahay kaas waad ku hor arki kartaa laakiin dadkana inta badan waa la soo wacayaa marka lagu soo wacaa lagu yidhaahdo negative ama positive baa tahay lagu kala sheego jawaabta positive haddaa tahay MDH bay center care u diraan Minnesota Department of Health bay u diraan annaga toos nooguma soo diraan and that's protocolkuna waa sidaas so MDH marka loo diro Minnesota Department of Health markay helaan annagay noo soo diraan so waa marka processkii already waad arki kartaa long buu qaadanaya from dhakhtarkii to MDH to annaga
marka iyo xanuunkana maada hal mar oo last couple of week days ayuu si xun maadaragtay usii faafay dadkii usii bateen oo test resultkii aad u batay maxaa la marka wuxuugaa annaga county ahaan waxaa batay dadkii intaan wacayna nambaradii baa batay also saameyn weyna waxaa ku yeeshay rabadaantii oo dadkii marka qaarkood markaad wacdid in ayna maalintii maadaragtay amba busy yihiin amba ay jiifaan amba aanad helaynin laakiin wuxuugaa systemka hadda waa yara bedelnay oo sidii backlog ayaan haysanay marka hore dad badan baa loo train gareynayay in ay hoolashan sameeyaan oo ay wacaan ay dadka wacdigeliyaan qaybta labaad qaybta koobaad dhakhtarkaa kuu sheegay oo ku dhahaya gurigaaga joog 14 beri aasilayd garay maaska xidho markaad faamilkaaga iyo ilmahaaga ag joogtid cuntada wax weel gaara ku isticmaal musqul gaara isticmaal haddii ay macquul tahay so waxbarxinta ugu horeysa dhakhtarkaas siinayeen dadka qaybteeda labaad ee faahfaahin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dad baa jira u baahan in maaskii loo geeyo ama resource kale loola xiriirsiiyo taas bay ka shaqaynaysaa countiga oo ka shaqaynayaa muddana way yara qaadanaysaa laakiin imika waxaan sameynay waan bedelay systemka oo halkii aan dadkii hore backlogkii dadkii hore already 3 weeks ago ama 2 weeks ago laga helay xanuunka already hadda ka kacsaday intaan u celihin dadkii hadda resultkooga lasoo helay baan priority ka dhignay si ay noogu fududaysa inaan dadkii iyagu weli cusub oo xanuunkii ku jiran oo walwalkii iyo su-aalihii qaba in aan la hadalno waayahay sidaan ayaamahan jaraa'idadu ay qorayeen numberka degmadeena Stearns County korba u kacay sidoo kalena waxay jaraa'idadu qorayeen meelaha goobaha shaqooyinka sida ama Genio ama Cold Spring ta ku taala ee Pilgrimage numberka uu korayay sidoo kalena kambaniya magaalada ku yaalana waxaa la yiri qaar kamid ah shaqaalaha waa laga helay labada hay-adood aad u shaqaysaan tan dawliga ah iyo tan cusbitaalkaba waa labada hay-adood oo localka ah oo arrimahan gacanta ku haya maxaad nala wadaagi kartaan in ay arrintaasi ku dhalisay alarmi ama qayladhaan iyo arrimaha xagga shaqooyinka goobaha laga shaqeeyo wax adeeg dheeraada oo loo sameynayo aad intaa ka warhaysaan kusoo dhawow hani waxaan ogahay sida Pilgrimage oo kale in la kordhiyey baaritaankii shaqaalaha lagu sameynayay kusoo dhawow hani codka waa kaa xiran yaan malaynayaa okay waa ku furan yahay ku soco haddaan runta sheega ani arrimaha oo waxay suubinayaan local warehouses ama meat plants si fiican uma kala garanayo maybe huda iga taqaan arrimahaas laakiin waxaa ognahay jirooyinka badankood inay ka imaadeen meeshan hilibka iyo warehouseyaasha oo magaalada ku yaalo dadka xanuunka meelahay kow ka keeneen meelahaas ahayd markasta communitygoodii iyo dadkoodii iyo dariskoodii iyo dadkii u keeneen marka as far as hadda waxay sameynayaan I think Huda might know more than me inay iga ogtahay ayaa dhici karto waaya kusoo dhawow Huda maadaama adiga dhinaca xafiiska ka shaqaysid ay tahay dhinaca authority ahaan xafiis dowladeed dabcan saad noo sheegtayna idinku naftigeena gobolka loo gudbiyo qofka xanuunka laga helo idinkuna uu stateka dhinaciisa fariinta leedii kasoo gudbiyo dabcan maraykanku waa wadan systemkiisu uu ka duwan yahay kaayagii oo kale oo leh line la maro oo aanan laga leexan marka waxaan isweydiin leh waa ogeyn gobolka in hadda weli la hadal hayo in dib loo furo goobo badan oo shaqooyina laakiin arrimaha shaqooyinka hadda gaar ahaan St Cloud area sababaha xanuunka uu ku fiday waxay la xiriirtaa goobaha shaqooyinka marka wax dheeraad aad ogtahay oo stateka ama countiyadu ay sameynayaan arrimaha xagga shaqooyinka aad nala wadaagi karta ama la shaqayn gaara oo aad la sameysaan shirkadaha ama kambaniyada u qaabilsanahay oo waxyaabo badan aanu dhinaca shaqooyinka aanu ka bixin karin habase ahaatee public healthka qaybo kala duwan bay leeyihiin qayb naga midihii waxay u qaabilsantahay oo weliba emergency response la yiraahdo amba response group loogu talagalay in ay xanuunkan ka shaqeeyaan qayb ka midii businessyada maxaa la yiraahdaa wacyigelin u qaabilsan yihiin
qayb caafimaadkii dadkii xanuunsanayay iyo resultskii bay u qaabilsan yihiin marka waxooga waan meelooyin la duduwan baan kaga shaqaynaynaa dabcan Stearns County aad bay ula shaqaynayaan businessyada maadaragtay ay saamaysay meesha waxaana ka maqnayn inaan wada ognahayba dad badan inay ka soo qaadeen xanuunka meelooyinka ay hadda hani sheegtay sida meelaha hilibka iyo meelaha warehousyada ee magaaladeena ku yaala ama degmadeena ku yaala taasna waxay keentay numberku inuu aad ugu sii faafo dadka bulshada degan guud ahaaneedba inkastoonanu awood u lahayn oo meelooyinka qaar ay businessyada qaarkood ay u furan yihiin because essential loo yaqaano ama kuwa laga maarmaanka ah madaxweynuhuna si gaara u furay u ogolaaday furitaan meelooyinka hilibka ah taasoo iyagana siinaysa awood ay businesskooda kusii maadaragtay wataan oo kusii shaqaalaha ay maadaragtay kasii shaqeeyaan businessyadaas laakiin anaga county ka ahaan wacyigelin resources iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin amba dadka ha ahaato amba kabaniyadii ha ahaadaan ayaan ka caawinaynaa oon kala shaqaynaynaa welina waayahay dhinaca stateka marar fara badan waxyaalaha shaqooyinka la xiriira ama qofka la xiriira waxaa jirta qoraallo ay ka soo saaraan mararka qaarkood fariimo ay soo geliyaan sidoo kale resources ama dhaqaalaha noqoto meelo la soo geliyo qofka xogta raba ee gobolka jooga weliba hadda waxay aad u update gareeyaan website-ka gobolka wasaaradda caafimaadka iyadoo la geliyo warbixinada oo xataa ku qoran afaf kala duwan af Soomaaliga uu kamid yahay maxaad nooga sheegi kartaa meesha ugu muhiimsan ama meelaha ugu muhiimsan oo dadku ay macluumaadka ay ka heli karaan xogta dhabta ah ee saxda ah CDC-ga iyo Minnesota Department of Health waa labada meelood ee caafimaadka waxyaabaha maadaragtay up to date ka aan resource ahaan u isticmaalnaa ama qof kastaaba u geli karo oo wixii ugu dambeeyay akhbaaraadka ugu dambeeyay ka heli karo sidoo kale Central Care website-kiisa waa laga heli karaa iyo sidoo kale Stearns County website-koogana waa laga helayaa waayahay su-aashan waxay la xiriirtaa haddii uu qof ka shaqeeyo meelaha kambaniyada ah oo qofkaasina xaas iyo caruuro weliba badan ay guryaha u joogaan maxaad kula talin lahayd walow qoys uu aad usi ilaalin karin laakiin waalidkaas dibadda aadaya ee soo shaqaynaya markuu guriga ka soo noqdo maxaad kula talin lahaydeen haddaan ku hormaro hani haddaan su-aasha si fiican u fahmo waxaad tiri dee qof essential worker ah oo family iyo caruur u joogaan guriga maxaad kula talin lahayd oo shaqo taga maalin walba shaqo taga yani inuu taxadarkiisa ahaan inuu isaguna sameeyo markuu guriga soo noqdana ilaa iyo maxaa looga baahan yahay qofka maxaad kula talin lahaydeen waxyaalo badan baanan aan arkay tusaale ahaan dad fara badan oo waxaan arkay gloves baca isticmaalaya dumar badan oo waxaan arkay indhashareerkoodii u isticmaalaya protection ahaan marka waxaad moodaa somehow wadanka dadka ku nool ee cadaanka ah iyo dadkeenu xoogaa xagga xataa taxadarku inay aad ugu kala yara duwan yihiin marka maxaad kula talin lahaydeen maadaama goobaha dadka ay kasoo qaadeen laleeyahay waa goobaha shaqooyinka horta shaqo kasta waa inay hadda guidelineska oo dowladda ay soo dejiyeen waa inay raacaan dadkii ay protection siiyaan sida hadda cashiyeerka oo kale daaqad baa loo sameeyey kuwii hilibka waa inay protection dadka siiyaan haddii qofkii uu dhimay protection fiican inaynin dee waa inuu ka hadlaa arrintaas oo ka taxadaraa inuusan jiradii uu kasoo qaadin meelahan markuu reerkiisa u imanayo waxa ugu hore uu samayn karo waxa weeyaan inuu musqusha aado dharkii uu banaanka iyo shaqada la aaday dhan iska saaro ama quweysto ama gacmaha iska dhaqa si fiican siduu reerkiisa waxas uga ilaalin lahaa dharkii wixiina dee laundry uu ku rido laakiin markasta xaqaaga ogow dadka aan dhaheen essential worker ama shaqaalaha laga maarmin waxay leeyihiin rights waxay leeyihiin xaq si employerkooda ama qofka u shaqaynayaan
protection fiican waa inay siiyaan waxay isku badbaadin lahayn mask iyo dee hadday dad kale la kulmayaan dadkii iyaga waa inuu wax u dhexeeyaa 6 feetna ay kala joogaan dadkan banaanka jooga indha shareerka isticmaalayo ama marada sanka saaranayo haddaysan mask haysanin indha shareerka wuu u dhaamaa wax la-aan marada way u dhaantaa wax la-aan waxa ugu fiican mask haddii aad maskigii haysanin waxaad heli kartid ku xiro sankii afka waaya aan og tihiin bulshada aanu kasoo jeedno ee soomaalida ah qaarkood waxaa laga yaabaa inuu qofka reer walba ay ku jiraan dhowr qof oo aanan baabuur wadan dadkuna ama way wada nool yihiin ama gaadiidka way isla raacaan haddii uu qofka darawalku yahay iyo haddii dadka baabuurka wada raacayaba yihiin waxaan u malaynayaa intii hadda xanuunkana bilowday qof marnaba anigu gaari ma dhicin aan u malaynaya inaanu isla raacno badanaa baabuurka keligay baan ku danaysta marka maxaa kula talin lahaydeen dadka baabuurka transportationka wadaaga haddii ay tahay meel shaqo maray ku socdaan ama markay adeeg magaalada ah ku socdaan maadaama qaarkood dadkeena ayaan baabuurta wadan huda kusoo dhowo kolley sidaan anigu nafteyda kasoo qaad unbaan ku waanin karaa taasoo ah inay la laminate gareeyo inta qof ee baxaya hal qof loo dheerakeed gareeyo inuu isagu adeega doono ama wixii maadaragtay xaafaddu u baahan tahay soo qabto taasna haddii waalidu kala weyn hadduu jiro ama qof compromise health issues qaba amba xanuun leh already qofkaas inaana loo dirin banaanka ama gaari qof kale la raacin maadaragtay dadka caafimaad qaba iyo dhalinyarta iyo ay maadaragtay wixii adeegii iyo suuqa looga baahan yahay soo qabtaan iyo awal ahaan waxaan ahaan jirnay dad iska last minute wax iska soo qabsada oo really planning iyo weegan maxaan cunto cunayaa maxaan aftur sameynayaa inaga Soomaali ahaan anigoo nafteyda kasoo qaadiya waxaan kusoo barbaarnay amba waxa aan sameyn jirnay ma aha imikasta laakiin waxay dantuba ku badaysaa inaad almost weeka dhan waxaad adeeg u baahan tahay aad fiirisid haddii aad weegii hal mar amba 2 jeer bixi kartid aad baxdid maalin walba marba saliid iyo marba basal iyo sankor iyo anad u kala noqon maadaragtay adeegaaga aad sii qoratid waxyaabahaasina waa waxyaabuhu COVID-19 kuna baray in aan u dhaqano sida dadka wadankan western countryga jooga ee wax kasta plan gareynaya inaan at least kasii fikirno weekan maxaa igu filaneen uga baahanahay aan sii qabto oo markaan adeeg u baxaya aan isku dayo hal mar inaan amba 2 jeer weegi ka badan inaan u baxo waaya dhinaca kale waxaan maqlay dadka qaarkood dhinaca shaqada soomaalida way isu raacaan way adagtaan u malaynayaa in dad gaari ku jira ilaa iyo heer taxadar ay sameeyaan marka sida igu aan ogaa xataa waxaa jira dad Soomaaliya oo ka shaqaysta inay ka qaadaan dadka guryahooda oo geeya goobaha shaqada bal hani maxaad kula talin lahayd haddii jiro qof baabuur ku qaada dad kooxa oo shaqo geeya ama nadaafad ahaan baabuurkiisa ha noqoto ama iyagu naftigooda inay kala taxadaraan ha noqotee bal hani maxaad adigu ase qof cusbitaal ka shaqeeya qof macnay bulshadii ka soo jeeda aad kula talin lahayd arrimaha noocaas oo kale horta arrimahaas waa arrimaha oo dhaqan u yahay gaariga raacidda dadkii hadday essential worker yihiin oo shaqadii looga baahan yahay ay gaari isla wada raacayaan ee choice kale ay haysanin waxaan kula talin lahayn qofka gaariga leh inuu gaarigiisa nadiifiyo sanitize gareeyo markay dadka ka baxaan wipe down uu ku sameeyo dadka gaariga saaran oo dhan inay mask xirtaan intay shaqada usii socdaan markay gaariga ka wada baxaan intayna soo gelina gacmaha iska dhaqaan iyo markasta aad hadlaysid viruskii afkaaga uu kasoo baxaya marka waxaad isku tijaabisaa inaydan hadlin intaad gaariga ku jirtiin I know waa hard waa wax adag dadku ag fadhiyo oo aadan la hadli karin laakiin haddaada choice kala haysanin gaari keliya aad shaqo ku aadid aada haysanin shaqadiina aada ka joogi karin waa inaad istaxadartaa dadka dhan inay sanka iyo afka wada xirtaan hadalka ay kala joojiyaan qofka gaariga la markii laga wada baxana dee uu sanitize gareeyo uu nadiifiyo
qofkii calaamada isku arkana dee uu u sheega dadka kale communicationkaas uu fiican yahay ama haddii lagugu soo sheego covid-19 intii qof gaariga kula saarnaa ama intii qof aad la kulantaba waa inaad dhahdaa war hebelow dee covid baa laga helay is ilaali ama quarantine isgeli 2 wiig oo kale sidii dee qofkii kalena uu usii faafin bahasha waayahay aad baan uga helay sida aad tiri war hebelow dhaqankeena soomaalida hadda ayaamahan waxaa ku batay wax qarinta laakiin war hebelow waxaan u malaynaya waa qayladhaan marka waxaad leedihiin ama aad leedahay haddii xanuun lagugu sheego waa ognahay waddankan waxaa la raadiyaa ciddii aad cilaaqaadka la lahayd hadday ahayd kuwa guri kula jooga iyo kuwa goobaha shaqada iyo dadka aad baabuurka raacdeen marka waxaad leedahay haddii aad xanuunkii lagaa helo dadkii aad baabuurka la raaci jirto oo kale warka gaarsiiye waxaad tiraa war xanuunkii baa laga helay arrintaa lala socda oo ha qarsanin ha dadkii aad baabuurka la raacday keliya ma ahan dadkii aad la kulantay intaas dadkii aad la afurtay dadkii ama qof kasta oo aad la kulantay xanuunka markuu kugu bilowday wiig ka hor meelahaas 10 beri cisho ugu dambeeyay waa in ayagoo dhan u sheegtaa because ayagii haddii ogeen intuu xanuunkii kusoo kicin dadkii kale way qabadsiin karaan isma ogaan xanuunkii inay leeyihiin dadkii dad kale sii qabadsiinayaan dhibkii wuu sii badanayaa uun marka waa in daacad laisku ahaadaa waxa laisku sheegaa xanuun weeyaan ma ahan wax ceeb ah ma ahan wax laisku caayo wax dadkeena iyo danteena faa'iidaysa weeyaan waaya hudda qofka haddii xanuunkan lagu sheego oo la yidhaahdo waxaa tahay positive cusbitaalka looga sheego iyo center care qofka maxaa lagula taliyaa ama aad oranaysaan haddii ay tahay intuu guriga joogayo iyo sida uga taxadarayo dadka kale ama nidaamka loo maro waxa loo yidhaahdo karantiilka inuu qofka uu iska ilaaliyo dadka kale iyo bulshada kale so maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha wacdigelintaan siino waxaa ka mid ah inuu 14 beri uu gurigiisa joogo ama intuu qandha 3 beri bilaa qandha ahaanayo isagoona dawo qaadan qofkaasi isolation periodkaas ah inuu maacunta isagu keligii wax ku cuno uuna dad la wadaagin amba qaado amba maadaragtay hal saxni dadka cuntada kula cunin in uu hal musqul isticmaalo haddii awoodo limitka oo contact dadka guriga jooga la leeyahay hadduu hal qol loo gareeyo qofka loo gareeyo qofkaas inuu ku jiro iska joogo haddii uu awoodo hadduuna awoodin oo dee dadka badaya hadday saamayso qof hooye ah guri hal qol maalin 14 days kuma jirayso we understand that soomaalidina inta badanna apartment baan deganahay guri qolol yar baan deganahay is impossible in hal qol maanta dhan aad ku jirtid so taas hadday imaato inaan anaga la hadalno qofkii wuxuu u baahan yahay shakhsiyan family kasta inaan individually ula dhaqano ama qof walba individually baahidiisu waxa ay tahay aan eegno si aan uga caawino hadduu maaski u baahan yahay inaan maaski u deliver gareyno haddii access to food amba meelaha cuntooyinka wuxuu u baahan yahay loo resource loo siiyo laakiin muhiimadda ugu weyn waxa waaye in uu dadka banaanka iska ilaaliyo most likely dadka guriga exposure baa jiro waxa laga yaabaaba inay dadka guriga la deganaa la macaamilayay inuu amba xanuunkii ku dhacay amba au saameeyey so haddii uuna saameynay inuu maaska xidho intuu ag joogo laakiin banaanka inuuna u bixin inta ay waqtigaas u dhammaanayo muddadaas isolation periodkaas u dhammaanayo markasta gacmihiisa meero waxaana ugu muhiimsan inaad gacmahaaga 20 ilbiriqsi amba 20 seconds aad saabuun iyo biyo ku dhaqdid iyo isticmaashid meelihii aad maadaragtay aad servicesda aad loo isticmaalo albaabka la furaayo teleefonka gacanta lagu haayo remote-ka waxyaabahaas easily dad kale u isticmaali karaan inaa la wipe gareeyo oo maadaragtay la nadiifiyo sidoo kale in markaad guriga ka baxayo dadka kale amba dad kale la macaamilaysa amba la hadlaysa inaad maaska xiratid haddii au xanuunkaagu sii zaa'ido amba maadaragtay neef kugu dhegto amba dhibaatooyin kale aad isku aragtidna aad maxaarada la soo xiriirtid xogta caafimaadka ee central care
okay waaya arrimaha xagga mucaawinada kulli gobolkan aanu ognahay wuxuu leeyahay nidaamyo oo dawli ah oo dadka lagu caawiyo sida hadda unemploymentigii oo dadkii shaqada ka fadhiistay la siinayay lacaga dheeraada dowladdii federaalka oo lacaga usoo dirtay food stamp oo qofka uu xaq u leeyahay laakiin sida ay sameeyeen hani iyo ama kooxo kale ay la shaqeeyeen ama aad marar badan aad ku arkaysid journaalkan St. Cloud Times waxaa jira meelo cunto qaybiya bulshadeennana waa bulsho danyara dadka qaarkood waxaa laga yaabaa ama inayan food stamp qaadan ama ayan lacag haysan xilligan hadda la joogo St. Cloud Times aad baa loogu soo qoraa qaydii xataa cunto free bixinaysa maxaad la wadaagi kartaan dadka idaacadda iyo barnaamijkan hadda dhegeysanaya meelaha ay ka heli karaan cuntada freega ah qofkii ay cunto la-aan hayso seese ugu heli karaan bulshada Soomaalida meela ay sida hadda St. Cloud Times oo kale xogta ay ka helaan oo ah meelaha cuntada freega laga bixinayo bal hani aan ku hormar arrintaas waxaa laga yaabaa dadka dhegeysanaya qaarkood barnaamijka inay shaqaysan ama lacag haysan oo markaasi macaluuli ama gaajo ka jirto guriga hadda walaa tukaamadii badankood bixinayaan cuntada freega waxay ahayd horaantii oo shelter in placeka markii koo la bilaabay laakiin familiyaasha waxay wici karaan Catholic Charities waxay leeyihiin food shelf lambar kale ayaa jira hadhow aan kusoo diri kara crisis line la dhaho oo dee dadkii hadday cunto la-aan haysta ama gaajo haysta ay wacan karaan laakiin dadka oo positive covid lagu dhahay waxay wacan karaan public healthka huda isax haddaan qaldanahay iyagaa arrimahaas ka caawin kara oo ku xiri kara meelaha adeega ama uu ka heli karaan adeegyada kale ama ay usoo adeegi karaan soo maaha resource u gaaraan hayna qofka haddii uu positive yahay oo cuntada iyo waxyaabuhu u baahan yahay lagaga caawinayo numberkaasina waa 320-656-6625 ama 877-782-5683 labada numberna waan kusoo diri doonaa insha allah waxyaabaha awal waxay ahayd Monday to Friday laakiin imika as of today waxaa laga dhigay 7 days a week inuu qof aad ku helaysid oo kula xiriirayo dabcan haddii aad la hadashid oo markaas kugu soo hagaago qof oo luqadda ingiriisiga ku hadla oona Soomaali ahayn waxaad codsanaysaa Soomaali turjumaan online-ka lagaaga xidhi inan baahidaada halkaasa wixii lagaaga qaban karo lagaaga qaban insha allah waaya uda adigoo mahadsan dadka ingiriiska ma wada fahmaan labada number af Soomaali ma noogu sheegi kartaa si fiican so waxa weeyaan 3 2 eber 6 5 6 6 2 5 amba 8 7 7 7 8 2 5 6 8 waayahay waana isku dii doonaa ama barta facebooka St. Cloud Somali Radio iyo dhinaca TV-ga ha noqote inaanu gelino macluumaadka meelaha cuntada freega laga heli karo si ay bulshada ula socdaan waxaan rabaa su'aal xoogaa ka yara baxsan inaan idin weydiiyo dabcan dadka Soomaalida ah ama muslimka ah caalamka hadda markaan fiirino waxaad arkaysaa ma facebooka tacsiib badan ama dad badan oo caalamka ku dhimanaya marka qof walba waxaa laga yaabaa intaasoo kun oo saaxiiba inaad leedahay marka waxaad arkaysaa maalin walba every second in la soo gelinayo tacsi ilaahay ha naxariisto intii xanuunkan u dhimatay laakiin waxyaalaha gaar ahaan wadankii ka imanaya oo aan arkay waxaa ka mid a qof u dhintay xanuunka coronaviruska oo la aasayo oo haddana meeshii lagu aasayay ay yimaadeen 200 qof ama dad aad isleedahay waa 50 ku dhawaad oo haddana isgarba taagan waxaad moodaa marka heer dawladeed iyo heer mujtamacba Soomaalidii inay arrimahaasi ay u gabeen marka muuqaalkaasna meelahan badanaa ka arko wuxuu la xiriiraa dhulkii aanu ka nimid Soomaaliya marka haddaan tala guud ahaan aad siin lahaydeen dadka Soomaaliyeed ee weliba hadda Soomaaliya jooga hal qof oo corona dhista iyagoo aasaya ku tagaya 200 ama 100 qof maaldood waxaan arkay nin lagu aasay meel waa boqolaal bay ka badnaayeen dadka waxaa jira meelaha ay hadda ay ka dhaceen
natural disaster ama duufaano ama biyo oo madaxdii degaanka intay iskugu wada tageen oo la leeyahay madaxdii gobolka oo dhan waxa ay qabaan xanuunkii marka idinka ahaan waddankan waa ognahay wuu aad bay u yaraatay inay 5 qof ay isgarab istaagaan oo meel noocaas iskugu yimaadaan maxaad kula talin lahaydeen ummadda kale Soomaalida ah oo aad moodid inay aqoontooda iyo taxadarkoodu aad u yaryahay waa ku hormari kartaa hani tala guud ahaan dadka Soomaaliyeed أنا waxaan dhihi lahaa hadda isbitaalkeenu leh dadka leaderska ama dadka xukuumadda isbitaalka Soomaalida imaamka iyo dadkii masaajidka ka shaqeynayay ula sii kulmeen oo waxay u sheegeen xaaladda siday noqon doonto hadduu qof muslim ku geeriyoodo isbitaalka qofkii sidii hore oo dadka loo aasi jiray looma aasi doono lama dhaqi karo xitaa meedkii waxay dadkii dhaqaya xataa u baahan yihiin hal ama labo bas waxaa la siiyey qalabkii la gashanayo waana qalab dee loogu talagalay dadka isbitaalka jooga waxay xidhaan dharkii korka kabaha madaxa kulli waa isdabooleysaa qofkii meedkii markii la diyaarinayo marka xitaa taxsidii ama aaskii qofna kama soo qaybgeli karo dadka aasaya keliya ayaa loo ogol yahay dadkaasna qalab waa inay xidhaan ay isku ilaaliyaan qofka markuu u dhinto covid uu kasii faafintii oo viruska uu kasii daran yahay qofka weli nool marka dadka waxaan kula talin lahaa dadka caafimaadka dhegeysta dadka talada idi siinaya dhegeysta qofkii niyadaada uga duceyn kartaa adigoo gurigaaga joogo waxaan ilii soo gelin karaa live oo waa ka daawan kartiin telefoonkiina ama computerkiina marka dadkii kale ha halaagina oo dadkii kale jirada ha u soo jeedina hal qof aa idinka dhintay laakiin marka 100 qof meeshii ku tihiin maybe 20 30 qof ka dhiman karo marka arrintaas wallaahi waa arrin adag oo dee fiicneen marka inay ka fikiraan intaysan aadin taxsi ama qof la aasayo way huddo adigana saad u aragtay social mediaha aad baad u isticmaashaa dabcan waxaad arkaysaa tacsi allah u naxariisto intii u dhimatay xanuunkan weliba ay aad ugu badan yihiin hadda Yurub laakiin hadda Muqdisho meesha la yiraahdo iyo aad bay dhimashadu u badan tahay haddana waxaad arkaysaa aaskii oo ay dad 100 ku dhow ay isgarab fadhiyaan ama qabrigii ay dul fadhiyaan marka haddaad la talin lahayd maxaad siin lahayd tala ahaan taxadar inay bulshadaas Soomaaliyeed ay sameeyaan horta inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun ilaahay ha wada naxariisto dadkii xanuunkan saameeyey amba u dhintay wallahi Maxamed Lario I'm a very social person social media aad baan u isticmaali jiray laakiin hadda bisha Ramadaan it just breaks my heart inaa maaragtay waxay noqotay niyad jab bay ugu noqotay markastoo on appkaas aad furtid inaad qof dhintay sawirkiisa iyo qof maxaa la dhahdaa dhakhtarkii ku jiro oo loo ducaynaya sawirkiisa aad aragtay soo bisha Ramadaan waan iska daayay inaan login gareeyo maanta programkan aan usoo galay laakiin waxaan dadkayga kula talinayaa dadkayga Soomaaliya joogaan ka hadlayaa saameyn weyn bay nagu sameynaysaa because waxa weeyaan third world country baa joogtaan adduunka saddexaad baa tihiin horumarkan aan haysano iyo maxaa la dhahdaa resourceskan aan haysano iyo caawimadan aan haysano dhaqaatiirtan iyo tababarkan aan haysano waxyaaba aad haysatiin ma aha waxa kaliya te so far xanuunkan lagu ogyahay in lagu kala maadaragtay badbaadin kara dadka waa inaad afka iska duubtid markaad hindisisid aad qofka wejigiisa ama hortiisa ku hindisin inaad mar walba gacmahaaga dhaqdid biyo saabuun ku dhaq maybe hand sanitizer qofku inuuna Afrika jooga inuuna haysan laakiin biyo saabuun waa wax la heli karo isku day markasta oo banaanka u baxdid oo gurigaaga ku soo noqotid aad miyaan farahaaga iyo gacmahaaga meedid haddaad dhalinyar tahay in aad wareega iyo maadaragtay ha u noqon sabab oo faamilkaaga weliba dad Soomaaliya waxaa jira dad waalidkoodii ma ahee waalidkoodii labaad awooyaashood ayeeyaashood la nool iyaguna ah dadkii ugu nuglaa xanuunka oo already iyagu dad maadaragtay xanuunsan oo compromised health issues qaba ay yihiin baaritaankan iyo caawimadan aan haysanana haysan marka ha u noqon sabab faamilkaaga inaad qof ku weydid haddii ay sababahaas oo kale yimaadaan oo qof dhintana
qofka ilaahay lahaa buu u noqday mas like degitaanka aad tegaysid geerida amba aad qabriga aad ka qayb galaysid waxba kuuma maad aragtay kuuma soo celinayo qofkii laakiin ducada iyo maad aragtay sadaqada aad u bixinaysid baa yaa ka weyn imika ahaan at this moment xanuunka socda iyo crisiska socda waxaan odhan lahaa sidii aad aqoon uga heli kari lahaydeen maad aragtay wixii caafimaadku nigula talinayaan haddii ayna jirinba dadka qaarkood waxaa laga yaabaa gurigii inay ku sakaraadeen oy ku dhinteen oy dhakhtarba tegin laakiin calaamadihii uu covid-19 ahaa bal isku daya inaad limid garaysin intii qof ay aasi lahayd iyo geeridan xataa maad aragtay 3 cisho la guglaayay dadka iskugu wada imanayaan waa meelaha ugu nugul ee lagu qaadi karo marka dadkayga Mareykanka jooga amba Yurub jooga ee Soomaalida ee resource haysta ee newsyada dhageysanaya ee xogta runta ka warhaya waajiba idin saaran inaad wacdi gelisiin dadkiini Afrika joogay for example aniga imika kale family ba ii jooga maxaa dhada Afrika degan waajib isaaran weeyaan dadkaygan Mareykan joogay amba Strange County ila jooga inaan wacdi gelin inaan familkaygii back home ka fikiro oo wax kasta oo news oo xog ah oo caafimaadka igu soo biiro oo ka fahmo covid-19 inaan iyaga la wadaago markaan ka hadlanay sanitizer I'm sure sanitization inay jirin Soomaaliya laakiin mar walba inaan familka ku yiraahdo iskuulka markaad ka timaadeen ama markaad suuqa ka timaadeen especially walaalahayga yar dhalinyarta gacmihiina maydha dadka waaweyn iska ilaaliya maad aragtay banaanka ha u bixin for now intaad maad aragtay aad xanuunkani sii faafaya la kala ogeynaya waxaanay sii kala degayaan marka qof kasta oo saas oo kale familkiisa hadduu waaniyo waxaa laga yaabaa inaad adigu noqotid resourceskii iyo maad aragtay meeshii caafimaadkii iyo dhakhtarkii iyo neerastii iyo maad aragtay researcherkii family ifgarin lahaa mar dhowid baa qof wuxuu isoo weydiiyey maadaamaan raadiyaha magaalada aan ka shaqeeyo goormaa la ciidaya waxaan u jeednaa rabadaankii sida ay tahay iyo salaadihii masaajidka la joojiyey iyo taraawiixdiiba oo dadku hadda ay guryahooda ku tukadaan marka waxaan ka baqayaa in markii la yiraahdo ganacsiga la furay Soomaalidu waa ogtahay barxada waaweyn bay ku tukan jireen inay yiraahdaan inuu ciidno aan isku tagno wadanka naftigiisana waa ka baqayaa ciidiina waxaa laga joogaa hadda wax aad u yar ma sii qiyaasi kartaan maxaase ka oran lahaydeen inay dadka qaarkood ay hadda ku fikirayaan haddii la ciidayo waa la soo bixi doonaa walaahi arrintaas waa arrinaan hadda ka wada hadlayno oo yesterday baaban ka hadlaynayba maxaa dhada Central Care iyo Public Health way ka hadlaayeen oo maad aragtay sidii tallaabo loo qaadi lahaa kolley hadda as far as we know lama tukan doono oo meel banaana barxada laguma tukan doono sanadkan bishan Ramadaan maxaa la dhadaa ciidan marka soonka ah so as far as meelihii la iskugu imanayay taas ma dhici doonto oo waxyaabaha la isku dayay hadda waxaa jira visual in oo imaamka amba dhowr qof inay soo galaan live ay soo galaan ay bulshadii TV-yada local TVs la soo geliyo oo sidaas ay dadkii maad aragtay shucuurtoodii ula qaybsadaan farxadda ciidda waa isku dayaynaa St. Cloud sidoo kale in aan iyada wax ka qabano laakiin ma weli hawsheedu way socotaa ma inay state of Minnesota oo dhan noqon doonto mise Twin Cities iyo St. Cloud inay kala bedelaan doonto laakiin kulley meel la iskugu imaanayo sanadka Ramadaan ciidan ma jirto waaya sidoo kalena Soomaaliyana waa rajaynayaa bal inay arrintaas oo kale aad looga taxadiro maadaama hadda qaar ka mid ah masaajidan maqlayo Soomaaliya iyo dhulkii waa lagu tukadaa waxaan ka baqayaa ciidan inay isku yimaadaan insha Allah barnaamijkayaga intaas ayaan ku gabagabeynaa hani wax fariin gaar ah oo u diraysid ma jirtaa bulshada Soomaalida ee dhageysata idaacadan haddaan labadiinaba idin weydiiyo kusoo dhawow hani hudo maxaad fariinta ugu dambaysa uga tageysaan waan ballanay inaan isbuuciiba hal mar barnaamijkan xogta aanu la wadaagno sida aad noo sheegteen hadda numberka magaaladeena wuxuu marayaa 1642 waa number aad weyn waxaan moodayay numberka dhimashaduna waa jira sida ay noo sheegtay hudda maxaad oran lahaydeen fariinta ugu dambaysa bulshada ee dhageysata idaacadan iyo barnaamijyadan joogta magaaladan St. Cloud Minnesota أنا waxaan ku darsan lahaa haddii xataa magaalada oo the governorka uu dhaho tukadii wixii waa la furayaa viruskii may bixin way joogtaa maaskigiina xidha
is ilaaliya qof kasta 6 feet ka jooga ama 6 talaabadood taxadirkii weli waa sidiisii waxaan kaloo rabay inaan sheego oo COVID-19 ku xirneen wiiga dambe khamiista markay 5 tahay caruurta oo la cruise degan Soomaalida aqaladooda waxaan u geenaynaa toys iyo waxay ku ciyaaraan xaqal iid marka dadka guryahooda iyagoo ku jiro albaabkan u hordhigeynaa arrintaasna waxa weeyaan program isla soo saareen Professional Somali Women's Group or Unite Cloud a partnership sameeyay marka inshallah next Thursday bisha 21 markay tahay 5 o'clock xaafadda la cruise ayaan xaqal iid caruurta u geyn doonaa aqaladooda dhexdeeda waaye marka waxaad leedahay farxad ku ciiday idinka guryaheena jooga huda adigana ereyga ugu dambeeya maxaad oran lahayd waxaan ku darsan lahaa un waxay hadda ka hor ahni ka hadashay oo ah xanuunkan ha isku qarinina ma aha wax la isku caayo ma aha wax la isku ceebeeyo ma aha wax la isku takooro waa xanuun ummadda oo dhan saameeyey kalar lahayn maad aragtay qabiil lahayn diin lahayn oo qof kastoo muslim iyo gaalba ku dhacaya marka muhiimadda weyn waxay tahay inaana la isku qarin inaana la isku ceebeen qofkii maad aragtay dadka ka qarinayaana maxaa la dhahdaye inuuna qarin haddii ay saamayso amba loo soo sheego inuu bulshada kale la wadaago ka bilaabo dadkii guriga la deganaa dadkii 10kii beri ugu dambeysay oo contact la yeeshay meeshuu kasoo adeegtay qof meel kasta oo garanayo in uu u sheego taasna waa waajib islaamiyan especially inaga ummad muslimna nahay ummad walaalo aynu nahay in aan maad aragtay qofka kale ma garan kartid adigu maanta haddaad ka kacaysid xanuunkan oo aad dhalinyartahay uu difaacaagu fiican yahay ma garan kartid qof labaadeed u qarisay inaad u sheegin inuu guriga ugu tegayo qof nugul oo xanuunkaas u dhimanaya marka mar walba ka fikir qofka kale uu saameynayo insha Allah yaana la isku caayin yaana la isku takoorin yaana la isku maad aragtay wax xun laga dhigin waa xanuun dadkeen oo dhan wada saameynaya insha Allah ha la is ogaado ha la is ilaaliyo mar walbana gacmahaaga mayd maskigaagana xidho insha Allah waaya aad baad u mahadsantihiin labadiina dadka ka daawanaya dhinaca streamingka barnaamijyada noocan oo kale ah waxaanu go'aansanay maalin walba oo khamiisa xiliyadan in aan isaga oo live ah maadaama raydiyuhu aan la tegi karaynin in aan hab live ah aad uga daawataan St Cloud Somali TV iyo radio qaybta Facebooka haddii ilaahay eedmo inta aanu noo suuroobis inaanu dib ugu noqono studioga inkastoo aan weli anigu tago shaqsi ahaan laakiin waan joojinay in aanu dad isugu keenno aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa Huda Daa'uud oo u shaqeysa xafiiska degmada ee u qaabilsan caafimaadka bulshada hawsha wanaagsan ay u hayso bulshada Soomaalida aad baan uga mahad celinayaa sidoo kale Hani Jacobson oo iyadana u shaqeysa cusbitaalka Center Care ama Center Care organizationka aan iraahdo oo iyaduna kala shaqeyn jirtay klinigyada magaalada qaarkood kamida laakiin hadda u qaabilsan la xiriirka bulshada qofkii su'aal qaba mar walba numberkayga aniga Axmed Laari ahaan wiila soo xiriiri doon karaa si aan barnaamijyada dambe aan su'aasha aan u weydiiyo xanuunkan intii u dhimatay Allah u naxariisto dad aan aad u aqaano oo aan ixtiraamo oo yani wanaag badan iga mudan ayaan maqlay inay ku jiraan cusbitaalka Center Care oo ay xanuunsan yihiin xanuunkan ugu jiraan iyagana ilaahay ha caafiyo oo waxaan rajaynayaa inay ka soo kabtaan oo ay ka soo baxaan cusbitaalka sidoo kalena dadka dhageysta idaacadda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay taxadaraan intii karaankooda ah gaar ahaan dadka hadda la leeyahay xanuunka dhinacoodu ka imanaya iyagu shaqaalaha shaqataga marka waa idinka mahad celinayaa xilli rabadaana idinkoo afuray reerihii dhex jooga inaad isu kala xilqaantaan barnaamijka nagala soo qayb gashaan aad baa u mahadsantihiin labadiinaba thank you walaalo sidoo kale adiguna Axmed jazakallah waaya barnaamijkayga intaas ku egyahay caawa intaan ku kulmi doono waaya intaan ku kulmi doono barnaamijka ku xiga waa anigoo Axmed Laari ah barnaamijyadan
oo maqal ah waxaad ka dhegeysan doontaan raadiyaha magaalada St. Cloud oo laga dhegeysto muujada 105.1 ee magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota sidoo kale isagoo muuqaalana barta Facebook ayaad ka daawan doontaan qofkii su'aal qaba sidaan idin sheegay nambarkayga shaashada ku qoran 6223238 wuu la soo xiriiri karaa sidoo kale qofka u baahan in lagu xiro huda iyo haniba sidaas oo kalena waa ila soo xiriiri karaa haddii la haydmo aniga idinku xiray ama nambarkooda siinay aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu